Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal soo dhowaada waxaan bilaabi doonaa casharkeenii afraad ee kusii xigi doonay Camtasia Studioga aan dhexda kaga jirnay maalmahan waxaan eegi doonaa haddii aan la idmo casharkeena qaybta ugu soo horreysa maanta waxaan kusoo daraynaa kaasi wuxuu ahaa video inagu aynu gacanta ku haysanay isla videoga haddaynu doonno waan kusoo dari karnaa waxaan leenahay file waxaan leenahay open project kadibna meeshii aan ku save garaynay ayaan ka doonaynaa hadduu ahaa Camtasia project isaga laftiisa ay halkan aad kala dordooran kartaan haddii kalena waxba ha isdhibina waxaad tegaysaan meeshii markii dhaweyto aan ku save garaynay kadibna waxaan leenahay kasoo save garay ama kasoo kici halkaa nooga soo kici meeshay doonto ha ahaato waxaan tegaynaa documentskeena waxaan kasi tegaynaa Camtasia waxaan kasi tegaynaa 10.3 ayuu ahaa kadibna waan soo furaynaa waayahay 10ka 3 ayuu ahaa waan soo furaynaa yes ayaan leenahay casharkii saddexaad ayuu inoo soo shubayaa waa kan casharkeenii saddexaad weeyaan waxaan isweydiinaynaa casharkan saddexaad marka aynu rabno inaan ka shaqayno haddaad double click siiso wuu bilaabmaya waaye haddaad double click siiso wuu bilaabmaya laakiin maxaa la samaynayaa casharkii waan soo qabtay waan soo furnay maxaan samaynaynaa hoos ayaan usoo qabanaynaa waan soo qaadaynaa timelineka ayaan saa usoo dhigaynaa eega timelineka ayaan saa usoo dhigaynaa hal su'aala isweydiinaysaa su-aasha isweydiinaysa waxay waa in la kala saaro videoga iyo casharka waa in la kala saaro so videoga adoo jooga videoga wakaasaa u dooro videoga oo dhan oo timelineka ah kusoo tuurtay ayaa right click siinaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa separate audio and video waan kala saaraynaa waxaan rabnaa inaan laba u kala saarno waayahay kaasaan ku dhufanaynaa waxaad doonaysaa kasoo qaad waa cashar hore loo duubay inaa cod kala dul saartaa rabtaa waxaan rabtaa audio hadda meeye kan waa videogii isha yar haddaad ku dhufataan waa aniga idiin sheegay shaygu wuu joogsamaya haddaan kan qabanno oo aan right click siiyo waa codkii haddee ogaada codka haddaan qabto oo right click siiyo oo aan ku dhufto meesha ay ku taalo silence audio codkii haddaan silent ka dhigo ma baxayo cod baxaya ma jiro hadda aynu istaarno wax baxaya ma lahan wuu iska soconaya nothing waxa ma soconaya that is it so waxaan ka fakaraynaa codkii sidee dib ugu soo celin karnaa hadda right click see meeshii aad silence audioha ayaan ka saaraynaa marka hadda waxaan fahanay sida haddii cod aad ugu soo darto shaygii aad dib ugu soo saari karto ama shaygii aad codkiisa u xiri karto kaasi waa ka haddaad rabto markaa hadhow inaad cod kale dul saarto codkii kale add unbaa dhahaysaa eega halkan bartaa add baa idinku taala ama add markaa ku dhufataan halkan wuxuu idiin soo dhigayaa meelay ku taalla import waa haddaad rabto inaad shay kale kusoo dartaan cod baan kusoo daraynaa kale codad baa halka inoo yaala waa kuwan tusaale ahaan recordingkan oo kale kusoo daraysaa waad keenaysaa qaar codadka wuu diidaa ogaada recordingka maraa kusoo dartid isagana taraag gaaraad ka dhigaysaa meelahana saa ugu soo tuuraysaa meel kale saa ugu soo dhigaysaa eega waad soo ag dhigaysaa isagana hadda markaa shidid mid kalaa shidmay because codkii hore waan silent garaynay haddii aad doonaysid marka kala saaridu sidaas ayay ahayd kasoo qaad waxbaa kaa khaldamay kan waa delete garayn kartaa right click baa siinaysaa remove waa dhihi kartaa delete baa dhihi kartaa kan waa qaban kartaa isagana right click baa dhihi kartaa delete baa dhihi kartaa kan right click baa siin kartaa cut ayaa dhihi kartaa isagana cod markaad saa ugu soo darto videogan kusoo darnay lesson 3gaas oo kale u ahaa markii dhowto marka waxaan aragnay sida isaga maxay codka looga saaro iyo videoga loo kala saaro haddaan hadda kala saarno codkii isaga aan codka dhexdiisa ku dhufanno codku kasoo qaad kor baad u qaadi kartaa halkaa ma ku arkaysan calaamad yaroo liidkaas saa u dul istaagaysaa waa dallacaysaa kor baa u dallacaysaa haddaad rabto markaad rabto music yaroo kale ama quraan ama shay kale ama wax hoosta ka soconaya cod uun hoosta ka soconaya waa iska yarayn kartaa saasaa loo kordhiyaa saasaa loo badiyaa eeg haddaan hadda codka saa u gaabino oo kordhino eeg codkaa dheer laakiin marka hadda codka yarayno wuu yar yahay codka markaan dheerayno ka waran halkan waa kan microfonka codka computerka ayaan marna kordhinay marna yareyn haddaan kordhino laakiin waxaa yaraanaya socodka uu soconayay kana uu soconayay way yaraanaysaa laakiin haddaan yaro kordhino eega haddaan kordhino socodkiisna kordhaya marka saas uu kordhaya waxaan doonaynaa marka inaan ku farsamayno
oo aan idin tuso haddii alla idmo videoga labadoodaba hal mar waan dooran kartaa control shan qabanaya kana waan ku dhufanaya kana waan ku dhufanaya labadaba hal mar baan dooranaya haddaan raba inaan kan keligii dhaqaajiya saasaan u qabanaya dib baan u riixaya anoo mooskayga qabanaya kana waan qabanaya dib baan isaga riixaya labadaba dib bay isaga riixi kartaa waxaan rabaa videogii waan edit garaynaya kasoo qaadda hore igu soo keen videogii hore igu keen waxaan rabaa inaan qayb ka mid a haddii aad isagoo shaqaynaya aad meel qabato wuu istaagaya ogow sababtoo ah dee inuu istaago waa khasab editingkii baad ku bilowday halkan waxaa ka arki kartaa daqiiqadihii iyo shaygu intuu soconayo iyo ta hadda aad joogto intaas ayaynu doonaynaa inaynu marka meel waxaan rabnaa inaan qayb ka mid ah marka aan ka saarno meesha tusaale ahaan codka ayaa rabtaa qayb ka mid ah inaad ka saarto codka dooro labadoodaba ha dooranin codka markaad doorato halkaa badha yaroo ku taala splitter baa la dhahaa ama kala jebiyaa la dhahaa kaasaa ku dhufanaysaa eeguu kala jebiyey hadda codkaa gaar buu ka dhigay intaas intii horena eeg gaar bay u taagan tahay intan dambe ayaan rabnaa inaan meel kale ka doorno soo socda haddana okay waxaan doonaya inaan halkaa haddana istaago oo gooyo haddana splitterkii baa dib ugu dhufanaysa okay intaa yar dhexdaad uga saartay banaanka ma arkaysaa intaa yar banaankaad ka saartay delete baa dhihi kartaa marka intaa delete baa dhahaysaa waad ka dhex saartay intaa kadibna horey baad ugu soo dhaqaajinaysaa haddii aad rabto wixii aad samaysay inaad ka laabatay control z ku celceli control z ku celceli control z ku celi control z ku celi way kaa baxaysaa intaa markaas la fahanno labada badhan laftoodu waa undo iyo redo waxaan rabnaa in labadaba aan meel ka saarno kan waaye ka hoosena la door videoga ayaan rabaa qayb inaan ka saaro kadibna waxaan rabaa okay soco okay halkaa marka marayo ayaan splitterka haddana ku dhufanayaa cod dooro meeshan laakiin ogow ka dooro meeshaas splitterka ku dhufo calaamadana waa inaad u taagan tahay hadda splitter intaa waad ka jebisay meesha waad ka saartay intaa hoose right click ayaa siinaysaa maxaa dhahaysaa delete ayaa dhahaysaa delete ayaa dhahaysaa delete ama cut ayaa dhihi kartaa labadaba waad awoodi kartaa inaad dhahdid hadhow baad isu geynaysaa labadooda saasaa codka loo gooyaa saasaa videoga loo gooyaa waaya